kusoo dhow 5 calaamadood ku tusinaysa in qofka xiriirka jacayl idinka dhaxeeya uusan ku jeclayn xiriir ku dhisan danaysi. waan ku salaamay saaxiib. xiriirka jacayl laba qof uu ka dhaxeeya waxa uu ku dhisan yahay labada dhinac inay bixiyaan dadaal isku mid ah. haddii la waayana waxaa dhacaya in hal qof uu qabto shaqo laba qof u taalay. ka waran haddii adiga weydiinayo subax kasta see tahay, adiga sheekada bilaabayo, adiga codsanayo in la kulmo, waxaasi oo dhan adiga lagaa sugaayo, qofkanina xaggiisa aadan wax feedbacka ka helaynin. xitaa kama helaysid in subax uu kaa soo horkaco uu kuu soo diro see tahay, in qofkani uu kaa codsado inaad kulantaan. qofkani waxaasi oo dhan waxdana kama gelin, wax kasta adigaa samaynaya. haddaba xiriirkani wuxuu ku tusinayaa in hal dhinac uu yahay, uuna soo afjarmi doono. ogowna markasta qofka uu kaa fogaanayo, adigana waad u sii dhawaanaysaa. waxaad u qaadaysaa dareen ka badan intaad u haysay, waayo maskaxdaada waxaa ku mashquulinaysaa sida qofkani aad ugu dhowaan lahayd, sida qofkani aad u siin lahayd attention badan, sida qofkani aad u kasban lahayd una soo celin lahayd. laakiin qofkani wuxuu samaynayaa taa beddelkeeda uu sii fogaanayaa, adigana waad u sii dhawaanaysaa, waxaana qalbiga kaa gaaraya dhaawac. haddaba waxaan halkani kula wadaagayaa 4 astaamood lagu garto in qofka xiriirka idinka dhaxeeya uusan ku jeclayn. waxaana kaa rabaa in 4 astaamood haddii mid ka mid aad ka hesho in qofkaas aad biraha uga kacdo. calaamada koowaad waxa ay tahay cudurdaar joogto ah. maxaad teel kaga qaban weyday? waan mashquulsanaa. maxaad igu soo celin weyday? waan ilaaway. ma kulannaa? may, waxaan raacayaa saaxiibaday. qofkani cudurdaarka ma dhammaado. tani waxay calaamad u tahay in qofkani uusan ku jeclayn. qofkani haddii uu mashquulsan yahay waa la gartay. mana jiro qof 24 saacadood mashquulsanaanayo. qof kasta wuxuu waqti u hayaa qofka u muhiimsan. waxaad garataa in qofkani aadan muhiim u ahayn, jacaylna uusan ku haynin. waqtigani waxaa la jooga waqtigaad biraha uga kaci lahayd qofkan. calaamada labaad waxa ay tahay wax muhiim ah ma jiro. waqtigaad wada hadlaysaan muhiim uma arko waqtigan. adiga kuma arko qof muhiim ah. qofkani agtiisa qof weyn kama tihid. waxa uu kula meeldhigaa dadka kale caadiga sida saaxiibadiisa, dadka ka agdhow. qofkani markaad kulmaysaan waxaad wejigiisa ka akhrisan kartaa in dareen gaara uusan jirin. ogow in qofkani dareenka uu kuu hayay u dhammaaday, xitaa haddii uu ku jeclaa. dareenka wuu isbeddelaa, qofkanina wuu isbeddelaa. ha xasuusan naftaada ku mashquulinin qofkani siduu kuu ahaan jiray, qofkani siduu kula hadli jiray. maskaxdaada ka saar hadallada uu ku dhihi jiray xilliga. hadda la taagan yahay qofkani wuu isbeddelay, dareenka uu kuu hayay wuu dhintay. aqbal kana soco. calaamada saddexaad waxa ay tahay been badan. qofkani waxa uu kula hadlaayo waa been. qofkani waxa uu kula hadlaayo waa been. waxa uu kuu sheegayo waa been. ballanta aad wada gashaan kama soo baxo. ma ogtahay qofka marka uu been kuu sheegayo inuu ku yasaayo? waayo waxa uu u maleeyaa inuu kaa aqli sareeyo, in uu ku sabi karo, inuu kuu sheegi karo wax kasta uu doono, because uu ka aqli badan yahay. una qaado qof kasta been kuu sheegayo inuu ku yasaayo, kuna dheh beenta iga jooji, sidaa ma ahan. naftaada qadarin iyo xishmo u muuji. hana dhegaysan been laguu sheegayo aad fahmayso inay been tahay. adigoo og ha u cudurdaarin. waxaad ku dhahdaa waxaasi waa been, waa ogahay, keli waa mahadsan tahay, kana soco. calaamada afraad waxa ay tahay mar kasta adaa qaldan. qofkani hadalladaada waxa uu ka dhex raadiyaa qalad. wuxuu sugtaa inaad qaldanto, kadibna qaladkaasi uu kaaga dhigo cudurdaar uu kaaga tago. adigu waad raadigelisaa, waa ka dabcanaacashaa, waa lagu soo noqonayaa, laakiin ma sii joogaayo. waa qof sugaayo inaad qalad gasho. ka waran qof aad isla hadlaysaan waqti badan, laakiin keliya hadalladaasi uu ka dhex raadinayo una ka helo qalad. qof kastoo qalad raadiye ahna wuu helaa qalad. qofkan haddii uu kula hadlayo si daacadnimo ah, hadalladaada kama dhex arkayo wax qalad ah. laakiin qofkani haddii ay ku jirto sidee qofkanaad isiga dirtaa, sidee qofkanaad isu dhaafisaa, wuxuu kugu raadinayaa qalad yar, kadibna wuu kaa aamusaya, space yar ayuu ku siinayaa. wuxuu ku leeyahay waan caraysanahay, qaladkayaad iga samaysay. keliya wuxuu kaa raba inaad dhahdo haddii sida ay tahay xiriirkiina halkanaa kusoo dhammaynaya. oo maalinta ugu farxad badan tahay filaya qofka, because waxaad siisay wuxuu rabay. wuxuu kaa helay hadal uu kaa sugaayay. intaysan taasi aysan dhicin, qof uusan ku dhibsanin, sheekadaada uusan dhibsanin, hadalkaaga qiimo uusan ugu fadhinin, waqtigaad wada qaadanaysaan aanan u arkin waqti muhiim ah, waxaa fiican inaad birahaad uga kacdid. qofka la raadso, naftaadana qiimaheeda ilaali. qofka waxa ugu sharaf badan, ugu qiimo badan waa in naftiisa qiimaheeda uu ilaaliyaa, meelaha aanan ku habboonayn uusan geynin. jacaylka lagu sheegayana waa dareen kabadbadisaad qof u muujisid, laakiin sidaa xaaladdu ma ahan. weli waa isoo celin kartaa, naftaada waad kontarooli kartaa, maskaxdaada halka ay fokas garayn lahayd qofkaasi wax kala ku mashquulin kartaa. waxbaad baran kartaa, waxbaad aqrin kartaa, waqtigaaga saaxiibada ku bixin kartaa.
qofkan waqtiyada aad la hadlayso waxaad samaynaysaa waxyaalo kale waad ku ilowdo qofkan kadibna waad ka meeranaysaa xasuusaha qofkan noloshaadana waxay ku soo laabanaysaa sidii caadiga ay ahayd ogowna markasta qof aad jeclaanaysid haddii uusan bixinaynin dadaal la mid ah dadaalkaad adiga ku bixinayso qofkan iska istaag raadso qof kale oo kugu bixinaya dadaal la mid ah dadaalkaad ku bixinayso taasaa naftaada ammaano u ah nabadgelyo u ah xasilloonida ka shaqaynaysa maskaxdaada nabadgelyadeeda ku jirta caafimaadkaaga ku jira weligaa ha isku daba dhijinin qof aanan ku rabin qof aanan ku jeclayn qof aanan ku xiisaynaynin qof marka uu ku arko emotionkiisa uusan bedelmaynin oo aadan la weynayn oo qiimo zaa'id aadan ku haynin qof xitaa marka aad la joogto aad ku dareemayso ama wejigiisa aad ka dareemayso in si zaa'id uu kuu jecel yahay sida uu kuu soo eegayo sida hadalkaaga uu dhageysanayo waxaa moodaa in TV qofkani filim aad u jecel uu ka daawanayo qofkaasaa heli kartaa waa isugu ciriirinaysaa qof intaasi aanan ku haynin qof intaasi aadan ka dhex arkaynin noloshani aad bay u gaaban tahay ku raaxayso waxaadna la qaadataa waqtigaaga qofka ku jecel sidaad adiga u jeceshahay qofka ku ixtiraamaya sidaad adiga u ixtiraamayso ogow naftaada wax kasta kala muhiimsanaato naftaada si priority-ga koowaad waxa kale labaad saddexaad si qofka aad jeceshahay ka hormarin naftaada faas naftaada dheh kadib qofkaasi intaan ku soo afmeeriyaa muuqaalkan fadlan haddii aad ka heshay muuqaalka la gareey si dad badan u gaaro na caawiyo